midnimada iyo kala taguna wax qasab iyo jujub ku iman kara maaha midnimaduna kuma iman karto qasab kala goona kuma iman karo abwaan xasan dhuxul laab saalax ayaa si kulul kaga hadlay shirka ka socda dalka Djibouti ka oo ay ku wada hadlayaan dawladda Soomaaliya iyo waliba Somaliland abwaanka ayaana sheegay sida uu xalka u arko isaga haddaba warbixintan ayaan barnaamijkeena ku soo qaadaa dhigi doonaa hadduu eebira balse daawada haday tahay booqashadaadii horeeday halkan ha hilmaami janaalkina subscribe saarato si aysan ku dhaafin muuqaalada update-ka ee xil walba halkan aan soo gelino mahadsanid abwaan xasan dhuxul laab saalax oo kamid ah abwaanada Soomaaliyeed ee ku nool Hargeysa ayaa markii uu horeysay ka warbixiyay shirka ka socda Djibouti kaas oo maalintiisii labaad galay abwaanka ayaa si kulul u yiri labada dhinac ee halkaasi ku shiraya inaysan jirin mid ka go'aan gaari kara sida uu jecel yahay haddaba ila daawada sida uu arkay abwaanka shirka Djibouti ka socda Badriyow shirka Djibouti waxaan u arkaa in labada dhinac ee ku kulmay ay isugu yimid dhinacna aanu wuxuu jecel yahay aanu ka go'aan gaari karin midnimada iyo kala taguna wax qasab iyo jujub ku iman kara maaha midnimaduna kuma iman karto qasab kala goona kuma iman karo 28 sanadood ama 29 sanadood ee Somaliland iyo Soomaaliya ay kala lusheen waxaan aaminsanahay inay kaga lumeen wixii ay isku biirin lahaayeen istiri lahaayeen iska caawin lahaayeen iga mid baata iyo kaama midihina xal maaha adduunyadana kama shaqeynayso waxba ma yihi waxbana ahaan maysid war sida inaka geeriso ku nool iyo ka jigjiga ku nool iyo ka Djibouti ku nool ay wada dhalasho iyo dhaqan iyo dhiig iyo isirnimo uga dhaxayso iyagoo nidaamkooda dawladeed kala duwan yahay ay Hargeysa Muqdisho ku noolna uga dhaxaysa Soomaalinimaduna ma aha hal calan wada hoos harsan abwaanka ayaa hadalkiisa laga dheehan karay in kaliya wanaagu ahayn in hal dal la noqdo oo hal calan la wada harsado loona noolaa karo sida ay u nool yihiin Soomaalida ku kala maqan Itoobiya iyo Kenya jigjiga iyo Gaarisa Soomaalida ayaa isha ku wada hayay shirkaan lagu heshiisiinayo Soomaaliya iyo Somaliland ruux walba oo Soomaaliyeed ayaana jecel inay wax wanaagsan oo ummadda Soomaaliyeed wanaagsan ka soo baxaan Allah ayaana ka baryaynaa in dadkeena qulubtooda isku furo oo ay midoobaan haddaba abwaanka ayaa mar kale la weydiiyay sida uu xalka u arko isaga waxa uu na ku jawaabay sida tan Soomaalida horta waxay wax ku ogolaataa ama wax ku diidaan caadifad iyo jibo inay caadifada iyo jibada ka baxdo oo runta iyo xaqiiqada wajahdo ayaan xalka warkaa waxaan aaminsanahay in la soo gaaray xilligii dadka Soomaaliyeed ee afiya dhaqan iyo siriidin wadaagta ay isweydiin lahaayeen waradaynu wada socon kari weynay inagoo kala soconnaa qorshe guud oo aynu ku wada soconno ma yeelan karnaa haddaynu wada jiri kari weynay inagoo kala jirnaa wax ma wada jiran karnaa oo dhaqankeena ma jiran karnaa oo diinteena ma jiran karnaa oo dhulkeena ma jiran karnaa oo badaheena iyo dekedaheena ma wada jiran karnaa hadday intaasi dhici weydo Soomaalidu ha ku tala gasho dhulka ay maanta ku heshiin weyday in bari toola jiilasha ka dambeeya ay ku noolaashihiisa iyo ka shaqaysigiisaba marti iyo magan cid kale uga noqon doonaan haddaba shirkan waxaa maanta khudbadiisii ka jeediyay madaxweynaha Soomaaliya isagoo la dardaaran iyo wax wanaagsan ka rajeeyay ila soo daawada qayb kamid ah khudbadii madaxweyne Farmaajo aan hadalno aan heshiino iyo ku dambaysaa marka labaad waxaa mahadska leh madaxweynaha Djibouti ee walaalkeena Ismaaciil Umar Geelle oo marna aanan ka caajisin marna aan ka daalin sidii dadka waalihiisa ee Soomaaliyeed oo soo hayn lahaa soo keen lahaa wanaagooda uga shaqeyn lahaa waxaan u mahadcelinayaa walaalkii Muuse Biixi oo isaguna sameeyay geesinimo iyo wafdigiisa oo suurtageliyay inaan halkan soo imaano waxaan u mahadcelinayaa safiirka Mareykanka ee Soomaaliya u fadhiya iyo kan EU-da matalaya waxaan u mahadcelinayaa wafdigeeyay la socda ugu horeeyay gudoomiyaha baarlamaanka iyo wasaaraha iyo golaha wasiirada halkan fadhiya iyo guddiga technical-ka iyo marti sharafta kale halkan fadhida assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh shirkaani insha Allah waxaan rajaynayaa inuu noogu dhamaado guul oo aan uga farxino shacabkeena Soomaaliyeed meel kasta ay joogaan maxaa yeelay waxaan ka hadlaynaa sidii loo walaaloobi lahaa wax loo wada qabsan lahaa si dhab ah loo wada hadli lahaa shirkaana runtii qabanqaabadiisa dhawaan ma ahayn
sanadkii la soo dhaafay yaan kala hadlay madaxweynaha walaalkeen Ismaaciil Margeelle waxay ahayd inuu qabsoomo Oktoobartii la soo dhaafay oo isagu ka shaqeeyay laakiin ma suroobin waxaan ku iri madaxweynuhu 20 sano ya carta laga joogaa xorriyadda markaan qaadanayna waxa laga joogaa 30 sano sanadka soo socda 2020 sanadkan aan ku jirno 30 sano waa wada joognay dib iyo dheefba 30 sano waa burbursaneen oo adduunkan ugu liidanay meel xun yaan naalay caruurteena waxay ahayn caruurta ugu fursad xun ama ugu mustaqbalka xun caalamka adduunka wax walba oo bini aadam ku hormarana meesha ugu hooseysan yaan joognay hadeen qoto waxbarasho caafimaad horumar maalgashi wax kasta oo bini aadam ku hormari karo ummadda Soomaaliyeed anagoo ah ummad aad u aqli badan u xikmad badan u taariikh fiican wax walba wadaagna laakiin caalamku waxaan ka galnay wax walbaba meesha ugu hooseysa wax kale ma aha waa go'aanka madaxda ay qaadatay oo taariikhda galaya hadda iyo mustaqbalkaba marka in si geesinimo leh loo wajaho xaqiiqda dhabta ah loo wada hadlo walaalkay Ismaaciil Margeelle waa ka dhabeeyay inaan ka wada hadalno 30 sano soo socda xagee tageynaa 30 sano waa wada joognay 30 sano waa kala maqreen kan soo socda caruurteena maxaan uga tagnaa dhaxal iyo mustaqbal weeye waxa gudigan loo sameeyay marka la wada hadlo oo la wada fariisto oo la heshiiyo go'aan la qaato waxa la rabaa go'aankaas iyo heshiiskaas cidii fulin lahayd waa idinka ummadda Soomaaliyeedna meel kasta joogto ishayna ku haysaa meeshaad u kaxaysaan haddaad tihiin gudiga farsamada haddaad barwaaqo iyo nabad u kaxaysaan iyo haddaad meel kale u kaxaysaanba annagu waan siinay kalsoonideenna dadkii ugu aqoonta badnaa baa tihiin Soomaaliya ama meel kasta Soomaaliya joogto dadkii ugu aqoonta badnaa baa tihiin waxaa loo baahan yahay inaan mustaqbalkeena hadda aanan waqti hadda joogan idinka fikirin aad ka fikirtaan 30 sano soo socda caalamka xagee ka galeynaa xagee caruurta ila waa tageynaa kulligeen ma wada joogeynay dadka halkan fadhiya 30 sano ma aqaano inta naga hari doonta laakiin kuwa hadda jooga dhalanaya maxaan uga tagnaa oo mustaqbal ah gacantiina ku jirtaa annaguna taageeradeena waa haysataan waxaan idin rajaynaynaa guul waxaan idin rajaynaynaa is-afgarad iyo oo waaltinimo ku dheehan insha Allah ilaahay waxaan ka rajaynaynaa inaan wax wanaagsan ummadda u keentaan wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh waxaan Allah uga baryaynaa in ummadeena Soomaaliyeed qulubtooda alla isku soo dumo Soomaaliya oo barwaaqaan aan ku wada noolaano sanadaha soo aadan haddaba daawaday waad ku mahadsantahay daawashada muuqaalka like saar channelkana subscribe saaro si aysan ku dhaafin muuqaalada xil walba halkaan aanu soo gelino muuqaalka xiga intaan ku kulmayno waa saaxiibka Soomaalida Asad Jaani oo idin leh nooli kulantay Badriyow shirka Djibouti waxaan u arkaa in labada dhinac ee ku kulmay ee isugu yimid dhinacna aanu wuxuu jecel yahay aanu ka go'aan gaari karin midnimada iyo kala taguna wax qasab iyo jujub ku iman kara ma midnimaduna kuma iman karto qasab kala go'ana kuma iman karo 28 sanadood ama 29 sanadood ee Soomaaliland iyo Soomaaliya ay kala lusheen waxaan aaminsanahay inay kaga lumeen wixii ay isku biirin lahaayeen istiri lahaayeen iska caawin lahaayeen iga mid baata iyo kaama midihina xal maaha adduunyadana kama shaqeynayso waxba ma yihi waxbana ahaan maysid war sida inaka geeriso ku nool iyo ka jigjiga ku nool iyo ka Djibouti ku nool ay wada dhalasho iyo dhaqan iyo diig iyo isirnimo uga dhaxayso iyagoo nidaamkooda dawladeed kala duwan yahay ay Hargeysa Muqdisho ku noolna uga dhaxaysa Soomaalinimaduna ma aha hal calan wada hoos harsan Soomaalidu horta waxay wax ku ogolaataa ama wax ku diidaa waa caadifad iyo jibo inay caadifada iyo jibada ka baxdo oo runta iyo xaqiiqda wajahdo ayaan xalka warkaa waxaan aaminsanahay in la soo gaaray xilligii dadka Soomaaliyeed ee afiya dhaqan iyo siriidin wadaagta ay isweydiin lahaayeen waradaynu wada socon kari weynay inagoo kala soconna qorshe guud oo aynu ku wada soconno ma yeelan karnaa
haddaynu wada jiri kari weyne inagoo kala jirnaa wax ma wada jiran karnaa oo dhaqankeenna ma jiran karnaa oo diinteenna ma jiran karnaa oo dhulkeenna ma jiran karnaa oo badaheenna iyo dekedaheenna ma wada jiran karnaa hadday intaasi dhici weydo Soomaalidu ha ku tala gasho dhulka ay maanta ku heshiin weyday in bari toola jiilasha ka dambeeya ay ku noolaashihiisa iyo ka shaqaysigiisaba marti iyo magan cid kale uga noqon doonaan